horta way kala xumaayeen laakiin aniga tii igu saameynta badneed dhinacna aan oran karo way kugu qosol badneed aad baan anigu caaw ka sheekeynayaa صح mana ilaawo niyo dhowr jeer horna malaha inaan ka sheekeeyo waan filayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان صاحب هذا كل حران channel كين حركم ونفشيال أتمنى دين سلام يا حبيبي وعلى وناكسن لما أنت واحد تشيني إن شاء الله إنه دون وناكسن تين مركها برسول وهذا I am coming back تبون صلى الله عليه فديا وحاد لا ماشي أنا I am coming back بان لي دب أيام صلى الله عليه صلى مركها هيس بيقول جتاد بسور قال علنته هكون راجل مركها صون قلنا الصحابي كودي مركها وريد كان يري يمكن يكون سود ويا كودته لايكتي شيرتي كومنتي ايج يان لدي كسهرين لك لا يا waxay leeyahay كودي ني ولو بدنا علقو meesha cado axsaan narko subscribe ku isbedel caawa narko fuligo fiiskiisu ka caawa narko eeg wax walba bil ka shaqeysiyo meesha jeclisiya saad boqol intay dawladda meesha way nacsiisanay nin weynoo gadle qarisi soo galiyay meel soo fadhiistay caawdin hadlayay hadanaan fiisidin waxba de walaalay ko yarcay magaranaysa inaga macaaneeya annaguna hayn ka macaaneynay duca qabayal beedkina waan arkayay iga soo hagaaga saaxiibina isku akhrisigay eeg adduunkani wada joognay isku akhrisigay naga hagaaganayo maxaad haysaa asxaabta waxaan leeyahay bal waxogaa ban waxaan yar taaban doonaa magaranaysa ee saxaabay nala socdaa maalintii ninkan ugu xumeyd baan ka wareysan doonaa ana maalintii wax baan sheegi doonaa anad weydiinaysaa laftarkaaga hataa macid kale marka maalintii ugu xumeyd inaad nooga sheegaysan rabnaa Abdiraxmaanow waniyo horta haddii aan ka sheekeeyo horta niyo kulli maalintii ugu xumeyd ama ugu naxdinta badneyd baad sheegaysaa Soomaaliya niyo horta way kala xumaayeen laakiin aniga tii igu saameynta badneyd dhinacna aan oran karo way kugu qosol badneyd aad baan anigu caaw ka sheekeynayaa صح mana ilaawo niyo dhowr jeer horna malaha inaan ka sheekeeyo waan filayaa niyo waxa jirtay niyo saddex nin oo aan saaxiibanahay laba nin oo aan saaxiibanahay kulli mar rabo iska ciyaal shacabkay haayeen magacyadooda inaan xusami doonin صح ma garatay صح laakiin waxa dhacday laba nin sheekadan markaa waxay ku dhacaysaa waa aniga iyo laba nin oo aan saaxiibanahay markaa kulli imka midi labadiiba imka dalka ma joogaan oo anun ba jooga marka sheekadu waxa u dhacaysaa horta niyo sheekadu waxa ka bilaabatay berigii hore de waxay ahayd baan filayaa dhowr sano ka hor ilaa 8 sano ka hor meelahaas kadibna waxa jirtay de berigaana moobiladan iyo iPhone-kan iyo waxaan aad iskaga yaraayeen oo Chinese-ka iyo waxa soo socday niyo horta anu hal dib baan lahaa horta dibkaan lahaa wuxuu ahaa telefoonka soo qaado baa isku qaltaa halkaas la mar anigu arkaya صح dhibkaas jiray oo de beriga 10 sano ka hor hargeysay waxay ahayd meel isku baadho oo dadkan maanta de YouTube-ka ku mashquulsan TikTok mu jirin wax saa loogu mashquulaa mu jirin internet-ka aad baa loogu yaraa marka taas waxa keentay in ummadii deegaanka ku wada nooleyd ay isku mashquulaan oo hadii ay dhac sameynayaan hadii dad meel loo istaagayo hadii jirnimada ugu sarreysay waqtigaas jirtay صح ma garato oo maanta waxa jirta de qofka maanta ugu yari TikTok iska furanaya ama waxa ku sidii nin weyn buu socdaa wala ilbaxay hadaba waqtigaas waxay waqtiga ugu baadhashada badneed marka aan Hargeysa joogay anigu صح kadib waxa dhacday hadaba niyo dhibka igu soo noqnoqday baa wuxuu ahaa dhowr jeer baa la baadhay wal isku kay qabtaa halkaas la mar baasha hadii la marna habeenada kamid u ciyaar galaniyo waxa sii ilaahay baa ku qoray inuu baadho adigu waxa soo tijaabiyo xasaasaniyo labadii nin ee saaxiibada ahaydeen shacabku wada nooleedeen inta wax ku tiraabaniyo arrinkan la wadaagto deena marsha ya labadii nin baan u tagay jaboo ka labada nin hadaba labada nin mid ahaani sidaydan oo kale u haayo wiliga cid mu baaran صح cid meel u istaagin cid yaani hataa ما نوع بيبقى سداحة ما نوع ويلي
laakiin ka kala iska yara baal xofta badnaayo waxa ku soo yir dhex jiro dhowr jeer xataa isaga ma garasa hawsha yar galo wax baadhay waxa ku dhawaniyo ilaahay anigu leeybo qorin in istaan la ii dhufto mar walba leega siistay bal anigu caawa ku siisto meel yar waxa xaafadayna ka baxsan ba waxa sameeynaa baynu dees baara dhiganayna kadibna qofkii soo mara waynu baaranaynaa marka mobile baan u socday oo dee mar iyo 2-3 baan ka samray mobile iga baadhay waxa sidii balcaaw miduu ii soo qabta diabetes tahay waa wali kiciye hadda meel yar xaafadaha dhexdeeda oo madow ayaa waxa dhacday maan ayaan istaagnay hadaba niyow dee yaa ku horeynaya waxaanu sameynay waan qori tuuranay deetna mid kiide baal xoofteynta iyo waxan iskaga dhex tiray ayuu yiri anaa ku horeynay iska badaayay ka baxdo wax ka baxbay ciyaarihiisi bay hayeen waxanigi anagiyo inankii kale dee aan waxaan isagu garanaynay dee baadhashana aan aqoonay labadaydu waan dambeeyay wadaba istaagteen hadaba inankii dee arday baa ku soo baxay inankii baal xoofteynta badnaa areestaago uu baadhayo waxaan buu yaqaan hay buu ka waayay waqti sax kadibna waa marka horeba shaqadiisii baan u dirnay intuu dharbaaxa webkaga siisiyay buu iska tagada ma garatay waxa lagu yiri hadda waxa ragayo markaagi bay taagan tahay markaagi ay taagan tahay hoostaasan ka garbiya dee cabsi kale ma jirtay wax markay waxan kugu horeyso wax sideeday diyo ama ninkan diyo ilka hora ka daadis ama daaqadaha banaysan diyo armad ku dhagarowdaa armad ku dhagarowdaa ama dee adiga laftaada ma waxaan laga sameeyaa lagu garaaca wada way dhici kartaa way markaad ka soo baxdaan in adiga lagu dilana way dhici kartaa in adiga wax dishan way dhici kartaa marka mar walba cabsida meesha way iska jirtay waxana way igu horeysaa oo markii ugu horeysay sax nin baa meesha soo maray hadda nin wuxuu xidhnaa ninkaasi kood aad dheer ku maartay markaan filmaanta hindida ka daawano khaymeenta xidhnaa halka ku joogo ayuu xidhnaa ninkaas sax wajigana koofiyad buu ku xidhnaayo dee nin aan wajigiisiba saan loo arkayn ayuu ahaa dee waxaan isirniyo ninkan xaafadaha dhexdeedina way ahayd waxaan isirni ama ninkan garataaniyo waad hadhow toola fashilantaa loo ninkii maxaa ku dhacay dee miskiinka waxay dadkii u baarbaaranayaabe kadibna waxaa dhacday waxaan isiri magaca cabdisalaamkii dee xaafadihi naasir ku tijaabi yacni ku qalad dee macnaha haddii ifan qof aad garanaysaba u noqdo kadibna markaasaan ku dhaha cabdisalaam istaag baan ku niyo wuxuu idhahdaa un ninkii والله أنا كويس. إذا هي يابي كان. هرتوا قرتني كان هنا متحافظيه إنك قرأي يمدو تانا أنا وحين. قاسم كله جاد لا راح. نسوا الدنيا تكفي. والله أنا كويس. ونقول دار صنابة. ودار صنابة كاسو دقائق هرتوا جابوا ما نستاهل مركو لما تشري عايب ما نستاهل. مركن هاد مركو نيكي لما تشري عايب. بودي inankii kale baal xoofteynta ku wanaagsanay waxaan ciyaarihiisa baa ahaayeen unbaa yidhi arda waa kan doonina xaragay niga daba carsi sax ka daba car ana ku xigay inankii kale igu xigay waxa dhacday aniga oo lalaya unbaa waxaan tegay ninkii baal xoofteynta badnaay igu horreeyay oo baaskoola sujuuda laga hayo لا إله والله ساسا هورستاغي بجريجيبا اي تي انت قبوبي اي ترعي نكينا حدين وحو كقبها كي كلا دو سعودي سوي مسكينك ها مسكينك دبو اردي wax alla ila dhaxda uu soo markan ninkii kale ugu ribaal xofteynta badnaa markuu sida u soo kareeyay u baxsaday ayaan nasax ka soo dabay alla ninka orodka ka dhacay horta anaaba ka darnaayo إلا لما تجي هنكر مرني بس نحن قاسوا كلو شري أنا قاسوا كلام شري صح نين كلام بس كده عرّي نيك وحلا عرّي مو أي بس كده بعرف بس كسعودي يقول بك هذا صح أنا صدقنا أنت حافظي بس ونقدر حتى حافظي أرض صقرة أي مو بيتي ترى قبلي يدي ترور إدم حاكود عيا بالكاسام كوري يعني حافظ بس ليني وكسب بس واسمارس ها لبديني نوبرتي وشاكي صريان في النقطة كي baal xoofteynta badnaa oo xiiqsan la waan sujuudda laga hayay oo xiiqsan iyo ninkii kala wareysanaya ayaan u tagay oo kii baal xoofteynta badnaa uu leeyahay yani waa markii shanaad baaskoolad lagu qabto waa markii shanaad baaskoolad lagu qabto baa haya xiiqsan kii kala yiri
uma baaskoolad baa lagu qabtayba hooyada iyo hooyadeed waxaa ku sameeyay oo maad ii sheegtaan waxbaa sidaa ku oran lahaa yadii baaskoolad lagu qabtay maad ii sheegtaan ninkan kale waxa ku caayaya maxaad ugu sheegi weydin baaskoolad lagu qabtay hayad baa socdo wadi arkisay balaaqooyinka dhowrka iyo bilaa goor nin qisadaas hadda waxay ahayd waa nolosheeda markii ugu horeysay baaskoolada arka horta inkastoo la igu qaban laakiin haddana aragtideedii baa wax kale igu noqotay way kugu taal halkaas aad ka war sidii baan waxaan ku wari qisadaas oo inkastoo qisooyin badan jiraan laakiin tay igu soo noqnoqotay aad ay igu qoslaysaa waa taas markastana labada nin saaxiibada ahayn aan soo qabano ka wada sheekaysano waa waxyaabihii maaragtay dhowr sano ka hor 8 sano ka hor bay ma filayaan ay sheekadaas nagu dhacday marka aniga qisadaas waxay ahayd qisadaas iguna naxdinta badnayd iguna qosol badnayd hadaba waad naga haysan qisadii ma garanaysaa kowdhe wixii kale way ka socdaan saxaabay bawarta batan hagaajiya sanadna waxa dambe hagaajino aad iyo aad ninkan qisadiisa oo dhageysan doona insha Allah waad tan hagaajiyan baqsid la dhageysan doona hagaajin hagaajin waayeen maxaan dad isku soo hawlayaaba markaas asxaabta dhamaantiin mar labaad iyo mar saddexaad ba aniga gaas aan cuntay imika halkaas wallahi markii baaskoolada saal lagu qabto markan sidaa ugu horistaagnay sujuudaas ay cunaysa marka baxsanayna halka dhabarka ay cunayeen meelahaas oo kugu talaaba islaadu marka ayaan saaxiibayaal aad bad mahadsantiin kulli qisooyin badan ku dib soo maray hadaad ka heshaan waxyaabo qisooyinka kale noo la wadaagi doona insha Allah videogan like saar yani TikTok giba like share comment wax bas ugu yaacaya marka meesha waa meeshii niye idinku kala kacsada insha Allah qofkii ku cusubowna saaxiib meesha casniga cadeeya kulli muqaala badan oo idin soo gelin doona insha Allah qaraaxo qosol imkina soo jeesanay wadna aragtaan shil kuma jiro marka waan salaamayaa ninkana habeenka xigan qisada soo qabanayna insha Allah oo tisha qisada ugu naxdinta badnayd ka sheekin doona marka aan isla socono aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye